nabigu dhowr nin baa jirtay ilaa lix ruux toddoba ruux meelahaas wuxuu yidhi meeshaad ku aragtaan baa ku jira cirkaba bin abi jahl baa ka mid ahaa oo nabiga cayin jiray aad u dhibay aabihiina uu dhibay uu cararay islaantiisaa u timid nabiga waxaa jira rasuulka ilaahi cirkaba uu cararay meeluu ku sugan yahay lama oga aduuna kaa cararay inaad cafidaan rabaa kacu yarmi waan cafiyee haddii soo tagtay gabadha cirkaba baduu tegey baddu jiday ku taallaa eeriyadaas baduu tegey doon buu raacay doontii bartankeeda markay marayso yaa hir qabsaday hir nimankii doonta naaquudaha ka ahaa oo watay waxay dhaheen baryaada dhegaystayeen wixii aan caabudi jirray in meeshan oo kale laguma baryi karo maxaa waxba nooma tari karaan ilaahay u bara barino inuu ilaahay naga bixiyo biyaha war biyaha bartankooda markii la taagan yahay oo hirka lacana uu kula tagaayo ma ilaah keliya wax bixin karaa wixii faraha badan meelaha noo tibnaa waxba bixin kara miya ah ilaahay waxaa ballan dhigaa haddaad dhibaatada naga bixiso bannaanka markaasaa u istaago ilaa nabi maxamed raadiyo gacanta u saar oon rumeeyo intii badda markuu ka soo baxayo gabadhii oo raadi baa meeshii tiri gabadha markay dhexda soo socotay sida kutubta ay ka sheekayso nin addoommadeedii ka mid ay soo kaxaysatay addoon show sakaraad oo weligiiba naag arag oo rafaadsan gabadh cadoo quruxsanna ay hor socoto labadoodii kelin ay yihiin makiya jidda isuma dhowa gaariga way isu dhow yihiin laakiin markay lagu noqoto way kala fog yihiin wuxuu yidhi war caawaaba difaaskii haysatahay tan maad say u sasamaysay ay u fiiri naagii hore xornimadooda xataa haddayna markaasay soo islaatay ninkeeda bay isu diidi doontaa gabadhii warbaalkan aniga adiga yaabana kala dhex taagama tiri kan masaad rabtaad uga dhargiye iska kaadi sug say u soo waday niman bay u timi war addoonka meelaan ka istaagaan laga qabtay tiri saas ahaa xarig bay ku xidheen meel bay iska dhigeen geed bay ku xidheen way iska tagteen ninkeedii maadaa soo socday ilaa keliga meesha warkii hebelaa sooma soo kaxaysan oo awal oo aniga bas iskama keeni waayo adiga haa baada horta cirkaba ninuu gaalnimo ku jira kaasaa u dambaysay markii awix meeshu bal meeshaad ku xidheen nimanku kaaga reebeen i tusbiy isagoo meeshii ku xidhan buu yimid kurku ka jaray isaga markaa kurka wuxuu ka jaray adigana caawad dhaxda kasii farqabsatay waxay ku tiri jidhkaaga iyo kaygu ilaa aad maxamed u tagto oo gacantaada gacantiisa aad saarto oo uu ku cafiyo oo diidaysa wa anta mushrik waana mu'mina gabadh ilaahay rumaysaanahay iyo nabigiisa gaal baa tahay isku diinba ma dhibi kar markaas ku soo noqon kara waxaa waaye nabiga markaad u tagta islaamta war diintan waa wax kale ma gabadhiintan waa soo wada loo saano bay ii jeclayd baa caawa arin lagu karnay saasoo ku islaamay cirkaba saxaabi weyn buu noqday markii dambe waa kii waxaad ogeydeen suubiyey macnaa dagaalkii lagu kala baxay 400 oo nin markii nimankii Yarmuk markay nimankii gaaladu hareerayeen muslimiinta yaa wuxuu yidhi maanta ciidankana Khaalid bin Waliid baa wata maanta wuxuu yidhi ani waan dhiban ninkii dhimasho rabo jihaad u socdo isoo raac Khaalid baa ku yidhi walaa naftaada halaaga ku ridi walaa dhegeyso ku yidhi Khaalid ani waa adiga hor islaamta dagaallo badan baad hogaamisay ani aabbahay waad ogeyd waa aabbaha ku ahaa nabiga aniga dhibkaan u geystay waad garan waxay faraha ka qaad 400 oo nin baa raacday gaaladii oo 200 oo kun iyo ka sii badan yuu bartanka u galay markaasuu laayay suu u waday 400 nin hal kama bixi muslimiinta ahaa laakiin waddadii way fureen muslimiintii waddadii way u fureen gaaladiina waa ciidankii gaaladii faraha badan saasuma ku jabay intii dambena Khaalid baa israaciyey